tani waxay mid ka mid ah habeenada ugu quruxda badan ee soo maray caasimadda kulan xiiso leh ayaa caawa halkan ku dhexmaray kooxda kubadda cagta ee Melbourne FC oo koox Soomaaliyeed oo ka soo safartay dalka Australia iyo kooxda xulka gobolka Banaadir u matali doonta tartanka maamul goboleedyada ee dhawaan ka furmi doona magaalada Kismaayo. ciyaartan waxay sileedahay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo taageerayaal aad u fara badan kuwa oo marqaatiinay daawashada ciyaartani. ciyaarta ayaa waqtiga loogu talagalay ku dhamaatay eber laakiin rigoorooyin loo dhigay labada dhinac waxay guush ku raacday kooxda kubadda cagta ee Melbourne FC taasi oo ku guuleysatay koobkii la dhexdhigay labada dhinac. dhamaadka ciyaarta ayaa waxa koobka gudoonsiyay kooxda Soomaaliyeed ee Melbourne FC gudoomiyaha gobolka Banaadir isagoo goobta ka hadlayna waxa uu sheegay in sanadka soo socda magaalada Muqdisho ay marti gelin doonto tartan xiiso leh oo loogu magac daray Somali Week oo loo qaban doono jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool oo kooxda ka timid Australia gaar ahaan magaalada Melbourne oo ay ku raacday guusha aan rigoore ku qaaday marka waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa kooxda ayagana ka socota Banaadir oo runtii ciyaar wanaag aad iyo aad u sareysa muujiyay inta kadib caawa waa habeen kale oo taariikhi ah sidii aan sheegnay habeenkii aan qabanaynay habeenkii ugu horeysay 30 sano kadib in habeen la ciyaaro haddana waxaan habeenkaas niri in aan sii wadi doono in aan taariikh sameeyno caawana waa habeen kale oo taariikhi ah oo astaan u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshada sidoo kale waxyaabaha gaarka ah ee ka dhigaya wax qaas ah waxa ka mid ah kooxda ka timid dalka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne waxay muujiyeen iyadoo ay dhacday masiibo bishii hore ee la soo dhaafay 14 Oktoobar oo dhammaan aan wada ognahay ayay waxay noo muujiyeen inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee inoo yimaadaan oo ay haddana nagala qayb qaataan habeen farxad leh sidaa darteed ayay habeen qaas ah u ahayd oo aan ayaga u soo dhaweynaynaa waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan iraahdo maadaama sportiga uu yahay astaan nabadeed iyo isdhexgalka bulshada wax weyn ay u tahay ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed sportiga qiimaha leh oo halkan aan ku aragnay waxaan leenahay waxa dhawaan bilaabi doona tartankii gobolada oo lagu qaban doono magaalada Kismaayo laakiin waxaan rabaa caawa fariinta ugu muhiimsan oo u diro ummadda Soomaaliyeed fariintan aad iyo aad ka muhiim u ah hadduu Ilaahay idmo magaalada Muqdisho sanadka soo socda ee xilliga saamarka ah waxay u diyaar garoobaysaa in ay martigeliso tournamentiga ama tartanka la yiraahdo Somali Week Tournament insha Allah ta'ala waxaana ku martiqaadi doonaa dhammaan kooxaha Soomaaliyeed ee ka jiro dunida dacaladeeda kooxda kubadda cagta ee Melbourne FC oo koox Soomaaliyeed oo ka timid magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ah kulankoodii saddexaad oo Muqdisho ay ku ciyaaraan iyagoo xad u sii safri doona deegaanada Puntland Abdullahi Ahmed Atosh Somali Cable TV Muqdisho